maxaad u malaynaysaa ummadda islaam sheeganaysa oo islaamku abtirsanaysa oo la yiri ninka afrikaanka ah quraanka lagu soo dejiyay asaga saxaabada rasuulka nabiga u ah annaka nabi nooma ah wuxuu nabi u yahay ninka rumaystay iyo ninka ku hadlay waajibna waxa ah dadka mas'uuliinta ah oo arinta waxa weeyaan ay hoos timaado inay xadka islaamka ay ka fuliyaan haday ka fulin waayeen dan imaam Allah ayaga ilaahay kula xisaabtamaya annaka waajibkeena waxa weeyaan aanu cadeyno isku qabiil maahin isku waxa weeyaan nama sheegto mana sheegano ninkii waxa weeyaan noogu abtiriyo oo yiraahdo reer bani fulaan baa waxa ka soo bixeena waxa weeyaan waa inaan ilaahay ka xishoon weeye hada wa billahi tawfiq sallallahu daan iyo jinni baa u warama shaadiin baa la shaqaysata shaadiin waxay u sheegeen in sheekhu Sunnah Muhammad sallallahu alayhi wasallam inuu yahay ayay u sheegeen ilaahay subhanahu wa ta'ala wayn likulli afaakin athim عذاب يهوي هلاك وحاله مد كستوب بين على بين ومشبضا إفك السماية دنبيله وحسيام له يقول الله ليه ده تكرر ما يستنين نين قالوا لي ودينتي كبحي ونبي محمد عليه صلى الله عليه وسلم يتذكر ما يسمع هي وعن هذا ولا السيابي وحما أنت قد عقالك عليه والرب نينك إلا يرى هذا وحاس ما سمينين gurigiisa la isku yimid odayaal qaar kamid ah la keenay wala difaacahay gurigiisa dhexdiisa la keenay nin la leeyahay waa qaali waa baarnay ninkaano waa dhageysanayo waxba kama jiraan waa waduubantahay isaga la hadlahay xirti baa ku salinaysa oo bilow muxuu sheekh bilow oda afrikaano jooga isli jooga oo lagu salinayo baa meeshii taaganba إلهي سبحانه وتعالى ولا تكن للخائنين خصيما خائنين تهدفاع العظيم هؤدودي هدفاع ما هذا الدفاع سنين خائنة أو قالوا بي أو رسولك عليه صلى الله عليه وسلم واحد الله صوغبته الله صوغبته محكمة الله صار زواجك وأساس أنا الكيس الله مريوه لكن إلا الدفاع ومع له الدفاع والريب ما كنت دفاع شو قال ميدو قال قفك الصومالي نمضوا صدح شرط بيلاده شرط أما صدح ركن بيلاده صدح يا قفك اللي هو الصومالي معه مسلم وشرط قفك مسلم وهي الصومالي معه رهبل نما لبا قبيل كابوعية مركو مسلم نقول رهبل وأبترسله صدح الصومالي صدح لازم أركان قفك الصومالي محاكو أمريكا وعا مسلم لماذا صومالي مسلم وأسود المال هذا نكي قالوا بي ساعدنا معها صومالينا معها شيطان لكورنا بالهوستر ما قالناش او الملك يمد الله فوق او عركه laga soo tuuray oo jinni soo laliyay oo shaytaan wax u sheegay oo shaytaan u waxyooday bari baan ka nahay qabiilhan shaqo kuma lihin tolhan shaqo kuma lihin dagaanhan shaqo kuma lihin culumaan bari baan ka nahay ninka Soomaaliyeey in la soo qabto gacan hal isku geeyo oo ninka la soo qabto oo maxkamad la keeno oo la xukumo oo abaalkiisa la mariyo سيعملوا شيء اللي كان سوا قالوا بي حكم سوا دل لكن محكمة بقى حكومة محكمة بقى نصارى هي وعليه يكون الدفاع هي قبر بقى الليبهم قيامة الليبهم نكا الشيطان هو وحيودي وحتى ما انت لها أنا علم بعض كان قالنا حقيقة قارن علم بعض علم الظاهر من موجة شيطان بقى هو وحيودي نكا نوعاسي يا للدفاع قفي عن أو حق تاجم بقى للدفاع أما أن بعض الكسر يا للدفاع وعن ليه ولا لها مسلمين تاع الصوماليين سيدنا علماء أي شيئين وليين ما نم قني محمد صلى الله عليه وسلم الصومال تحدث أو سألوا قفاية عيب يكون تاي دجانك قال كعي كفرت قال مذو عيب يكون تاي إنه صبحه نين محمد صلى الله عليه وسلم عيبين هي رأس مالك ومضوا ودينك الله سبحانه وتعالى جل جلاله ثم نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدره يدين رأس مالك إن دفاعنا واجب نوا ونك على سوقته أو لما حكم ذيه إلهي وحكبر سبحانه وتعالى ذلك الجهل هو هيو متك السوق قيلية اسكروا ما يسنى هي إلهي هنومي هذا توبت كان نين كان بري هلقا نقضه ونين هلقا يستاغو هل يصودا فيه وحرجينا هي هذا نك على سوقته وقال هلقا سوقته أو لما حكم ذيه الروب رمي قد يدور روب قد يدور وخير هل دونا وبركوب دونا
laakiin ayako abaarhaysay oo awalba yaabanaa bay waxay kusii darsadeenba in nabiga caayaan sala allahu alayh wasalam xaggaa roob ku arkaysaan xaggaad khayr ku arkaysaan xaggee wax ka helaysaan balaaya war yaaba kabale waxana xaggee wax ku arkaa war ninkaas oo qabda roob baa inii daahiyey oo maxkamad keena waa barakoobaysaan